kusoo dhawaada casharkeennii shanaad. Sidii caadada inoo ahayd waxaan soo furnay Google. Waxaan ku qoranaynaa Google Colab oo ah meesha aan ku qoran jirnay koodhadhka. Waxaan furaynaa page cusub. Waxaa ku dhufataa new notebook. Wuxuu idin keenayaa meeshaan. Waxaan ku bedelaynaa marka ugu horeysa cinwaanka ama title-ka projectiga hadda qorayna oo ah casharkii shanaad ayaan u bixinayaa. casharkeena shan wuxuu ka koobnaan doonaa qaybtiisa koowaad waxa la dhaho reading ama writing files. Faylashu waxay ka koobnaan karaan dhowr qaybood. Waxay noqon karaan plain text waxa la yiraahdo qoraal caadiya oo letters ama xarfo ka kooban. Waxay noqon karaan qayb format kale oo loo yaqaano XML oo arki doontaan. Waxay noqon karaan JSON. Waxay noqon karaan image ahaan bay kugu imaan karaan oo iyagoo sawiro kale kugu imaan karaan datada ama faylka rabtid inaad akhridid. Waxay kugu imaan karaan cod. Waxay kugu imaan karaan video. Aan ku bilaabano qaybta ugu horeysa oo ah inaan akhrin karno ama aan qori ama anagu soo saari karno qoraal mid ka kooban file ka kooban qoraal text ka kooban. Marka waxaan qoranaynaa ama ku bilaabaynaa waxa la yiraahdo writing inaan file writing ku sameyno oo ah inaan hindisno ama abuurno file. Marka waxaan lagu bilaabaa sida tan. Si aan u abuurno file cusub waxaan la baxnay variable la dhaho file1 ayaan u bixiyay. waxaad doonto ayaa u bixin kartaa. Kadib shuruudda waxa weeye inaad qortid waxa la dhaho functionka la dhaho open parentheses-ka ama qoyseenka ma furaysaa. Title-ka aad u bixinaysid file-ka rabtid inaad sameysid ayaa halkan ku qoray. Qoraal ayaan u bixiyay. Waxa inaa khasab inaad raacisid format-ku noqon doono. Marka text format buu noqonayaa qoraal caadiya oo letter xarfo ka kooban. Halkan waxaan ereygan mode baa la dhahaa. Marka haddaad rabtid inaad wax qortid w waa write waa loo soo gaabiyey qoraal inaad abuurtid. haddaad reading sameynaysid ama akhrinaysid r buu isu bedeli doonaa waa arki doontaan. Kadib filekii dhexdiisii wixii hadda kan title-ku ahaa laakiin qoraaladii dhexda ku abuur ama qori lahayd ama dhexdiisa geli lahaa ayaa halkan ku qortay. Hadda laba xaraf kaliya qortay soo dhawaado bis laakiin uu dheeraan karaa ama uu badan karaa. Kadibna waxaa laga rabaa variable-kii inaad haddana marka dhibic inaad raacisid right. Markan inaad dhibicdan close raacisid oo function kale ah oo method ah oo rabo in lagu xiro. Haddii aadan close orinin maanta dhan wuu iska soconayaa koodhkaagu iska waqti badan computerka ayuu ka macnaha waqtigiisu ka dilayaa. Marka dot close inaad tiraahdo waa muhiim. hadda markaan run dhahno meeshan qaybtan dhinaca bidixda ah waxaa ku arki doontaan title-ka file-keena cusub aan aasaasnay. Shift enter baan dhahayaa. haddaan soo furo dhinacii waa kan file-keenii uu noo samaysmay. haddaad ku dhufto double click siiyo waa aragtaan file-keenii waxaa noogu qoran wixii halkan ku qoranay oo file-kii sidaas ayuu noogu qoran yahay. haddii aan u gudubno taas waxay sida file loo sameeyo ama loo aasaaso ama loo qoro. haddaan u gudubno si loo akhriyo file-kii hore kuu samaysnaa inaad akhrisid baa rabtaa. waxaad qoraysaa sidan.
sidaan u akhrisano faylkeenii hore aan qoranay file one, hadda kasoo qaad inuu desktop ku yaalo filekaas, inaa akhrisid baa rabtaa. Waxaa sameynaysaa functionkii oo kale isticmaalaysaa aan kor u isticmaalnay kore, laakiin halkan w ka halkan r baa gelaysa oo ah reading usoo gaabsan. Titleka qoraalkeen waxaa qoraal.txt, waa khasab inaad qoratid oo fileka nooc type ku yahay. Variable in halkan qortay ayaga shuruudda waxa weeye readingka markaa sameynaysa ama fileka inaad akhridid ama kuu furma rabtid, waa inaad variable hordhigtid oo aad ku xareysatid magacaan aad ula baxday, kadibna waxaa raacinaysaa dhibic, kadibna read, kadibna qoysinkan ayaa xirisaa. waa shuruudda laga rabo markaa wax akhriyaysid. Kadib waxaa leedahay iisoo daabac, waxaa halkan xarfo ku xareysatay, kadibna waxaa leedahay xir filekan oo kuu furnaa xir, haddii kale computerku iska run garoonaya maanta dhan. aan shift enter dhahno, waa aragtaan wuxuu halka naloo akhriyay ama fileka ama functionkan inoo akhriyay wixii noogu jiray qoraal texti oo hore noogu daawacnaa oo halkan ah. labadan qaab oo kor hadda idinku tusay waa laga fiican yahay, sababtoo ah mar walba waxaa ku haysaa close. Waxaa dhici karta inuu marmar hilmaamtid ama computerka uu crash ku dhaco ama kaa xumaado ama memorigiisu macnaha kaa buuxsamo. Marka qaab function kale oo ka fiican ama ka fudud baa jira oo mar walba badanaa la isticmaalo, waxaa la dhahaa with open. kana hadda aan qorayno isla sidii wuxuu kaga duwan yahay with ayaa la socota, waa arkaysaan wax uu kaga duwan yahay. kan hadda qaabkan ayaa ka fudud qaabkan hore usoo aragnay, waana ka fiican. waan qaabka dadku badanaa ay dadka sharxa luqadan waxay dhahaan, haddaa rabtaa inaad file ku xareysna ama kuu jiri rabtid inaad soo furatid, waxaa isticmaashaa kan. with baa ka hormanaysaa, waa shuruudda ka mid noqotay. open baa raacinaysaa, kadibna fileka magaciisii oo kuu xareysnaa iyo formaat ku yahay. kadib waxaa raacinaysaa as. qaabka waxaa la dhahaa condition hore, sidii if statement oo kale hore isu arkayseen. condition baa la dhahaa, condition marka asna inaad raaciso waa khasab, iyaduna shuruudda ka mid tahay. ereyga rabtid halkaa loo baxaysaa, erayo ayaa u bixiyey 2 dhibcood. kadibna waxaa variable baa samaysanaysaa er oo erayo usoo gaabiya ala u baxay, waxaa dabta ula bax. waxaa ku xareysanaysaa erey variableka halkaa dhigatay, kadibna waxaa leedahay io akhri, kadibna qoysa ka xirisa. Hadda markaan calling ku sameey er oo iraahdo print dhaho, wuxuu ii soo saarayaa wixii iigu xarisnaa kor oo ahaa soo dhawaada. marka intaan qaabkan wuxuu la mid yahay qaabka, waa isku mid, laakiin kana dadku badanaaba ay recommend gareeyaan ama dhahaan hala isticmaalo. aan fiirino hadda iyadoo aan ku sameynayno writing ama ku qorayno.
waxaan kaloo sameynay file kala cusub ayaan qoranay ama writing ku sameysanay. Filekaas waxaa la baxnay variable waxaan sameysanay file tree oo la baxnay list ayaan furanay. horey waa soo aragteen qoyseenkaas waa list. waxaad doontaa ku xareysan kartaa. waxaan ku xareysanay mar labaad soo dhawaada qoraal baad number ba ku xareysan kartaa. kadibna waxaan rabnay inaan isticmaalno with open anoo create gareynayna file with open sa writing hore ugu soo arkayseen. kadibna magaca filekan ayaan gelinay. parentheseskaas weynaad macnaha waxa comagaas weynaad gelisid. kadibna moodkii uu ahaa w ama write loo soo gaabiyey w loo soo gaabiyey ayaa halkaa gelinaysaa. kadib asti oo shuruudda ka mid ahayd waxaa rabta halkaa loo baxa fi file ba uu soo gaabiyey 2 dhibcood. kadibna write wey markan awal hore kii hore wuxuu ahaa read wuxuu kaa rabay inaad gelisid variable hor dhigtid laakiin write kaama rabo. kadibna qoysinka furaysaa. meeshaan waxaan geliyey waxa la dhaho string. haddii aadan string gelin uu kaa diiday wuxuu ku leeyahay filekan ma aqbalayo. marka string waa function oo built-in functionskii hore usoo aragnay mid ka mida weeye. wuxuu u bedelayaa type oo qoraal ayuu wuxuu u bedelayaa type kale. haddaa haysatid integer oo rabtid inaad string ka dhigatid waxaa functionkan ayaa isticmaalaysaa. kadib shift enter running baan nidhi waa run garaynay. waa kan filekeennii halkan ayuu noogu samaysmay. hadda waxaan ka hilmaamnay inaan ku darno txt waa khasab. txt waan ku darnay running baan nidhi halkan ka soo baxay. filekeeni halkan buu noogu xarismay. hadda double click siiyo waa kan isagoo filekeeni noo sameeyey ama noo samaysmay. waxaana noogu qoran waxaan ku xareysanay. haddana aad intuso qaab file idin yaala shaashada desktopka ama folder kale oo computerka ku jira inaad akhrisid oo reading ku sameysid ama halkan soo gashid meesha koodka ku qoraysid. tallaabada koowaad aad qaadaysid way kala duwan yihiin laakiin collabkan hadda aan isticmaalayo tallaabada koowaad aad rabtid inaad qaadid waxa weeye meeshaan ayay ku dhufanaysaa. waxaa arkaysaa upload meel ku taalo upload ba ku dhufanaysaa. waxaad tegaysaa desktop. ani desktopkayga jooga computerka hadda aan isticmaalayo. filekan baan rabaa inaan kusoo waxaan leeyahay open. xaggan buu ii yimid saa ujeedaan file txt. kadib waxaan isticmaalaynaa functionka soo baranay oo with open ahaa. waxaan leeyahay with open calaamadeena furanay. kadibna halkan aan ku noqono filekeeni waxaa ku siinaysaa right click. waxaa leedahay copy path waa soo copyeynaysaa. meeshan ayaa ku paste garaysanaynaa. kan aan iska laabno. haddaa marka reading sameynaysid haddaa rabtid modeka read waa gashan kartaa ama waa ka tegi kartaa. laakiin hadda waxaan sameynayaa waxaan qoraynaa as sidii caadada ahayd files waxaa rabta u bixi. hadda waan noo read gareeyay filekeedii waa soo qaadanay halkaan aan kasoo gashanay. haddii aan rabo inaan print gareeyo waxaan ku save gareystay file. haddaan file markaas soo qabto filekeenii desktopka aan kasoo qaadanay ama aan wordka kusoo qortay waxaa iigu qornaa sidan waxyaalahan ayaan kusoo qortay. marka taas waa si loo furto file ku yaala desktopka ama meel kale oo computerkaaga.
haddana waxaan gudbaynaynaa qaybteennii labaad ee casharkeennan. qaybteenna waxaan ku baranaynaa waxa la dhaho modules, packages and libraries. aan ku bilaabo moduleska. Modulesku waa hal file oo kanoo kaleeta. hadda kan waxaan bixinaa casharka shanaad. waa hal file waxaan ku save garaysan karaa shaashadda ee desktopka. waxaan ku koobiyeyn karaa folder aan u bixiyey casharada Python oo inoogu jiraan kii afraad, casharkii saddexaad iyo kii labaad iyo kii koowaad. marka halka casharka shanaad oo kale halka file waa module buu noqon karaa. package-kana waxaa noqon karaa folderkii oo ay ku jiraan casharadii Python-ka oo 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 ahaa. library-guna waa meel de computerka kale library noqon kara oo ay kugu jiraan intaan oo xabo oo packages oo kala duwan oo folders ah oo mid walba ku jiraan intaan oo code ku jiro. halkii module wuxuu haysan karaa 1000 code ama 100 xabo oo lines oo code ah sida kan hadda imise line baa soo qornay iyo in ka badan buu noqon karaa. tusaale ayaan ku tusayaa mid walba packageska iyo moduleska. aan ku bilaabo moduleska. tusaalaha ugu fudud ama dad badan aad u isticmaalo waxaa ka mid ah moduleka loo yaqaano maths. haddaad xisaab rabtid inaad isku dhufatid ama isticmaashid xisaabta trigonometry oo kaleeto, haddaa haysatid inaad cosine ama tan ama kuwaas kale rabtid inaad isticmaashid, dad baa hore u diyaariyey module ahaan u diyaariyey. kaliya waxa u baahan tahay inaad soo gashatid. marka qaabo kala duwan ayaa loo soo gashtaa. mathska hadda moduleka maths la dhaho Python ayuu la yimaadaa. marka wuxuu kaaga baahan yahay inaad tirahdid qortid marka ugu horeysa import ereygaas aan hadda barano, kadibna waxaad raacinaysaa modulekii aad rabtay inaad soo shubatid. haddaa rabtid modulekan gudihiisa waxa imise shay baa ku jira, waxaad dhahaysaa erey, waxaad isticmaalaysaa functionkan kadibna maths aad isticmaasha. modulekeenaan hadda furanay dir wuxuu ku tusayaa itus wax ku dhex jira ama functionska ay kasii dhexdiisa kusii dhex jira. hadda sida kan ay kan iyo kan igu sii dhex jiraan ayuu modulekan kuwan igu sii dhex jiraan. marka waxaan kala soo baxaynaa tusaale ahaan circle-ka saan horey idinku tusay. markaad rabtid inaad calculation ku samaysid area of circle-ka, waxaa radius-ka inaad marka hore tiraahdo radius waxaa haystaa 3 ah. tusaale ahaan xaggan waxaa la baxayaa circle variable la dhaho. marka radius formula caadiga oo lagu helo radius area waxa weeye r ama radius-ka oo lagu dhuftay pi. marka pi dad baa hore noogu diyaariyey modulekan ayuu noogu jirtaa. marka sida aad u isticmaasho modulekan waxaa lagaa rabaa inaad marka hore samaysid 2 jeer ayaa isku dhufanayaa. saa modulekan u isticmaashid waxaa lagaa rabaa inaad samaysid waxaa qoranaysaa xarafkii maths kadibna waxaa rabtid oo ku dhexdiisa kusii jiray. haddaan hadda dhaho run garee circle, marka pi waxay noogu jirtay moduleskii maths. intaa waa inta caadiga formula caadiga. calculator haddaad qaadatid oo pi calculatorku meel gooniyu ku leeyahay sidaasoo kaleeto ayay meel uga xareysantay. marka already hadda waa aragteen waxay modulesku taray. su'aalo kalena waan tusayaa si aad in badan usii fahantaan. modules kale oo la yiraahdo waxaa jira random. aan soo degsanaa isagana. waxaan soo degsanay ama import kusoo samaysanay module kale oo random la dhaho. random wuxuu qabanayaa inuu habdan number random ku siiyo
oo haddaad rabtid inaad hadda samaysid lottery ama bakhtiyaa nasiib ama dad baa rabta inaad tartansiisid kun number baa meel ku xariisanaysa waxaa leedahay qof walba numberkii random ugu soo baxa ama si computerku soo qabto baa leedahay tusaale ahaan marka waxaa isticmaalaysaa random oo ereyga halkan ku xaraysnaa oo moduleka soo degsatay magaci marka hore dhigaysaa kadibna dot kadibna choices waa method ka mid ah wixii moduleskii wixii kusii dhex jiray tusaale ahaan hadda saan marka hore idinkugu sharxay modulku waa file sida casharka shanaad oo kaleeto waxaa ku dhex jiri kara kan waxaa ku dhex jiri kara kan marka waxaan kasii isticmaalaynaa filekan waa randomka waa magacii guud oo fileka choiceska oo ah inuu choice na siiyo hadda 9 buu noo soo qabtay hadda mar labaad haddana soo koobiyeeyo haddana mar labaad koobiyeysid oo tiraad u dirtay choice kale haddana mid kale ku siinaya hadda saa u aragtaan marka hore 9 buu na siiyey haddana 5 buu na siiyey su'aalaha saddexaad ee moduleka raba inaan idinka tuso waxa weeye inaad adiga samaysatid oo sida random kale qof horey u sameeyey inaad adigu samaysatid inaad soo degsatid hadda matalan code dheer baa qoratay 100 line ka kooban oo xisaabaad diyaarsatay formula xisaabaad diyaarsatay ma rabtid inaad mar walba ku celcelisid hal mar baad save garsanaysaa waxaa dhici karta inaad casharo kale sharxaysa casharka tobnaad oo kaleeto marka waxaa u baahanaysaa cashirkii koowaad filekii koowaad kugu xariisnaa function aad diyaarsatay ama code aad diyaarsatay inaad soo qaadatid sida halkan oo kaleeto oo xisaab isku daran kuu sameeyo ama wax kale ama shaqo kale aad qabanaysid markaas aad ku qabsatid tusaalahan siiyo si hore u fahantaan usii fahantaan cashirkeeni afraad aan soo furanno waxaa noogu jiray waxaan oo filekan waxaa noogu xariisnaa waxyaalo badan aan kan tusaale ahaan usoo qaadan kan wuxuu noo qabanaysaan casharka afraad kusoo baranay wuxuu isku dardarayay nambaro ama calculation isku dardar ama uu noo sameynayay oo hadda 12 si automatic la isugu diray haddaa rabtid waxbaa kala jaraysaa isku daraysaa ama 100 waxaa haystaa 1000 number baa haystaa xisaabo kala duwan in isku daro baa rabtaa 100 200 300 1000 2000 3000 in hal mar isku darsatid baa rabtaa marka kan aan import kusoo samaysano cashirkeena shanaad dhexdiisa waxaan sameynaynaa marka koowaad waa inaan meeshaan nimaadno waxaan leenahay upload waa inaad halkan baa tagnay waxaad dhahay halkan baa imaanaysaa waxaad sameynaysaa file baa tegaysaa kadibna download baa dhahaysaa .py midkii ku taalo waxaad ku download garaysanaysaa computerkaaga desktopkii meesha rabtid kadib halkan baan nimid upload baan dhahayaa hadda desktopka igu download garaysay waa kan cashirkii afraad .py waa inay raacsantahay khasab saan ku dhufsanayaa xagga markuu noo yimaado ayaan import kusoo samaysan karnaa waxaan leenahay import module aan samaysanay waa soo import garaysanay oo cashirkii afraad u bixinay marka si aan u isticmaalno modulekan kan waa filekii guud magaciisii laakiin waxaa ku dhex jira function aan sameynay oo noo sameynayay number walba halkan gelino inuu isku dardaro marka variablekan baa la baxnay intaan kadibna cashirkii afraad baa soo qaban dhibicdii waa shuruud ka mid ahayd moduleska markaa isticmaalaysid functionkii kusii dhex jiray filekaas parentheses qoysinkiisa furtay numberka rabtay ayaa gashanaysaa kadibna column ayaa ku sameynay variablekeenan waa kan labada nambaraha marka la isku dardaro intaan buu noqday waxaa rabtid oo kale u bixinaysaa hadda halkan ka dhigno waa kan numberka intaan noo noqday haddana marka kuwaas waxay ahaayeen moduleskii packageka waxay noqon karaan
aan u gudbino packagekii aan sharxaad yara ama tusaale yara idinka siiyo packageka iyo libraryga. Tusaale ahaan packageska waxaa kamid ah packageka la dhaho Flask, oo haddaad Google ku qortaan Python Flask, waa framework ama package ama library ay kugu diyaarsan yihiin koodadka Pythonka oo ku saabsan oo khuseeya sida loo dhiso website. Marka dad baa ku diyaariyay waa 10,000 oo codes oo marka oo qaybo kala ah sidaan oo kale qaab loogu soo import gareysto oo loogu soo shubto oo budget ayadana oo aan intusi doono casharada soo socota. Marka Python Flask baa jira, waxaa kaloo jira oo website kaliya dhisitaanka websiteka khuseeya. Python waxaa kaloo jirta la dhaho Django, isagana waa Flask oo kasii weyn oo kasii faahfaahsan. Marka qofkii raba inuu noqdo web developer ama websiteka kuwa sameeya wuxuu baran karaa libraryadan ama packageskan ayuu dhex gelayaa oo si fiican u baranayaa si aad website u dhistid. Mid kaloo asagana waxaan tusayaa tusaale kaleeto. Waxaa kaloo jira library la dhaho TensorFlow, waxaa iyagana isticmaala dadkii hadda si halkan idinkugu qaxan Google-ka ayaa sameeyey. Waa library ay ka buuxaan koodadka ku saabsan waxa la dhaho data analysis-ka iyo AI-ga wixii khuseeya sida deep learning waxa la dhaho ayaa library ay ku jiraan way oo ayaguna ciida wax ka badan oo code ah. Marka asagana qaab loo soo shubto ayaa jirta oo loo isticmaalo. Marka librarieski packageka waxaa sii baran doontaa markaan dhammayno. Waa phase-ka labaad xiga. Casharadan hadda basic Pythonka markaan dhammayno waxaan raacaynaa haddaan rabno inaan website sameyno inaan barano libraryada iyo packageka inaan barano ku saabsan websiteyada sida Django iyo Flask. Haddaan rabno inaan barano sida AI-ga iyo artificial intelligence-gana waxaan baranaynaa TensorFlow iyo libraryadaas iyo kuwo kaloo badan oo arki doontaan ayaan casharada ku xigi doona markaan basic dhammayno. Hadda Pythonka kuwaas ayaa noogu xigi doona haddii la yiraahdo. qaybteena waa qaybtii ugu dambeysay casharkeena shanaad. Waxay ku saabsan tahay wax la dhaho IDEs ama code editorska. IDEs iyo code editorska waa software lagu qorto Pythonka sida kan hadda oo arkaysaan aan isticmaalayno waxaa la dhahaa Google Colab. Sida aan markii ugu horeysay aan bilaabayna casharada idinkugu sheegay sababta Google Colab u doortay waxaa weeye waa online, waa share gareyn kartaa, kaagama baahna inaad wax soo download gareysid. Waxaa isticmaalaysaa Gmail-kaaga adoo sign in ku sameynaya, automatically ayuu kugu save gareynayaa. Faa'iidooyinkaas kaloo badan buu leeyahay, inkastoo uusan ahayn Colabkan mid qofkii raba inuu software develop gareeyo ama website develop gareeyo badanaaba kuwo kale ayaa jira oo la isticmaalo. Marka kan wuxuu ku fiican yahay ardada iyo dadkii raba inay AI dhinacaas data analysis-ka isticmaalaan. Laakiin haddaad rabtid inaad software engineer noqotid ama software developer noqotid ama game develop gareysid ama website dhistid, kuwo kaloo kaga habboon ayaa jira. Marka kuwaas ayaa wax u kala baxaan waxa la dhaho IDEs iyo code editors. Mid walba faa'iido gooni mid walba wuxuu leeyahay iyo weaknesses. Marka Colab labadaba midkood maaha, waa qayb saddexaad oo la dhaho notebook oo saa magaca u aragtaan waa notebook, waa meel wax lagu code lagu qorto, book lagu qorto. Laakiin code editorski IDEs waxay leeyihiin features ama facilitaad badan ama waxyaalo badan oo dheeri ah kan haysan ayay leeyihiin. Haddaad Google ku qorno top Python IDEs ama code editorka, qof walba talo ku siinaya kan ba u fiican, kan kana fiican. Qof walba wuxuu midkii uu hawsh shaqadiisa u fududeeyay ayuu ku faaninayaa. Laakiin aniga aan soo 3 xabbood tusaale aan idinka siiyo
horta midka koowaad midkii marka Python soo degsataan ama download tirahdaan oo halkan ku dhufataan waxaa la socda mid idea ah oo mid fudud oo aad badanaa aan kaliya wax kuusoo daabacaya koodka isku daraysid ama kala jaraysid ama aad qoraysid ama functionka qoraysid kaliya ku daabacaya waa basic baa la dhahaa. haddii aad laakiin rabtid inaad horey usii socotid oo badanaa midka dadku aad hadda loo recommend gareeyo ama ugu fiican kamid waxaa kamid ah kan la dhaho PyCharm. download ayaa soo dhahaysaa kadibna next baa dhahaysaa dib malaha si loo download gareeyo waa fududahay uma baahna barasho qof baa samayn kara. marka PyCharmku qayb lacagna uu leeyahay qayb freena uu leeyahay. marka qaybta freega soo shubta waxaa kaloo jirta midkan kaloo la dhaho Visual Studio isagana halkan ba download ka dhahaysaan. aniga hadda Mac baan leeyahay laakiin hadda Windows haysatid Windows aad dooranaysaa kadibna download dhahaysaa. kan isagana kugu fiican ku jira waxaa sameeyay shirkadda la dhaho Microsoft. waxaa kaloo jira mid kaloo la dhaho Sublime Text isagana waa text editor isagana halkan ayaa ka download garanaysaa. marka aniga hadda waxaan haystaa Visual Studio oo kan hadda halkan igu yaala. waxaa kaloo oo markaa soo shubataan meeshaan buu idin keenaya. waxaa kaloo Sublime Text-ka hadda idin tusaya markaa soo shubataana halkan saanu noqonaya markaa soo furataan. Sublime Text waa kan. marka tusaale degdeg aan ka siiyo Sublime Text oo kaleeto file baa dhahaysaa save as baa dhahaysaa. waxaa ku save garaysanaysaa hadda waxaan ku save garaynayaa test. waxaa shuruuda kamid ah hadda Python qoraysid .py ina raacisid kadibna waxaan leenahay print one hadana command p waa kan wuxuu noo soo saaray 3. waa aragtaan waxaan soo degsanay modulekii mathska anagoo isticmaalayna Sublime Text editorkan Sublime Text la dhaho. marka waa ujeedaan sidii aan Colab u isticmaalaynay buu halkan noo isticmaalay 8 buu noo soo dhigay halkan. marka code editorka iyo text editorka iyo kuwan aan Visual Studio ama PyCharmka iyo ama Sublime Textkan casharada kaleeto aan isticmaali doono ayaa ku arki doontaan. haddaad basic ka dhamaysaan waxaan kula talinayaa inaad kuwan aad u isticmaali doontaan. ama halkaas ayaa casharkeeni kusoo gabagabeynaynaa. casharadeenii basic Pythonkan halkaas ayay noogu dhammaadeen. waxaa xigi doona oo inaan bilowno casharo kaloo isku xiga oo ku saabsan project run ah ama project sax ah inaan hadda qabano oon kasoo bilowno from scratch ilaa dhamaadka aan geyn doono. markaas ayaad qofku markuu arko project sax lagu sameynayo codekii ama Pythonkii ayuu macno badan usii yeelaya ama si fiican usii fahmi doontaan. Assalaamu calaykum.